السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Juba Institute of Professionals. waa pre-intermediate English course oo ah koorsadii pre-intermediate-ka. koorsadani waxaad ku qaadan doontaan buugaag badan oo ay ka mid tahay 4000 Essential English Words book 1. sidoo kale waxaad ku qaadan doontaan daily English conversations iyo phrasal English phrases kuwaas oo dhan baad ku qaadan doontaan iyo basic grammar. haddaba saad la socotaan casharkan maanta waxaa ka bilaabay kii 11aad taasoo macnaheedu tahay inaan 10 cashir oo kale ka horreeyo 10 cashir ayagoo duuban fadlan waxaa kala YouTube channelkayga Juba Institute ka dhageyso. sababtan ugu soo celin wayna waxaa weeye maadaama hore aan u duubay arday badanna ay ku xinaayeen ayaa u soo celin wayna adigu hadda daarta inaad soo dhageysato si gaar ah YouTube-kan Juba Institute of Professionals YouTube channelka gal halkaas ayagoo duuban ugu tagaysaa. anigu maanta waxaan ka bilaabay marka cashirka 11aad oo ku yaala page-ka 38 buugga asagoo dhageysi iyo asagoo qoraalaba waxaan kuu soo geliyay Google Classroom-ka. fadlan Google Classroom-ka kala deg waana muhiim cashir kasta inaad soo dhageysato waayo dadka ajnabiga luqadda u dhashay markaad dhageysato si fiican bay luqadda kugu fudanaysaa. waayo maanta marka ereyga 101 oo ah ereyada taxanaha ee buugga koobaad waxaa u horeeya advantage. advantage haddaad maqasho waa faa'iido waana noun. advantage waa faa'iido. an advantage is something that helps you waa wax ku caawinaya. an advantage faa'iidadu is something that helps you wax ku caawinaya. being tall inaad dheer tahay is an advantage waa faa'iiday ku tahay to a basketball player ciyaartoyda basketballka. marka basketballku waa kubadda kolayga ama kubaddan kuratu salla waxay dhahaan ee lagu dhaxlido kolayga lagu dhaxlido. marka qofka dheer soo si fudud buu u dhali karaa. marka advantage waa faa'iido. an advantage is something that helps you waa wax ku caawinaya. being tall inaad dheer tahay is an advantage waa faa'iido to a basketball player ciyaartoyda basketballka. ereyga waxa cause waa sababid. sidoo kale waa verb marka cause waa sababid markay verb tahay. markay noun ka tahayna qadeedna way noqotaa. I am fighting for my cause qadeedna way noqotaa. laakiin hadda waa verb waa sababid. to cause is to make something happen waa inuu shay inuu dhaco inaad sababto. waa kana marka phrase buugga wuxuu ku fiican yahay ereyga markuu ku sheego macnihiisa oo English kana buu ku sheego phrase. the cause to cause is to make something happen waa in make something happen shay inuu dhaco markaad sababto ayaa waxaa la cause. marka fiiri to cause inaad isticmaasho iyo inaad make something happen way iska agdhowi. tana waa phrase kana waa word. the cold weather cimiladii qaboweyd caused her waxay sababtay to get sick inay jirato. the cold weather cimiladii qaboweyd caused her ayaa sababtay to get sick inay jirato. waayo erey kale waxaa choice waa dooq. choice maxaa la dooq markaad wax doorato wey ama dooqaaga Soomaaliga dooq baa la. a choice is the act or possibility of picking something waa inaad wax doorato. picking something pick waa doorashada nafteeda noqotaa iyo inaad qaadidna way noqotaa. choice waa dooq marka. a choice is the act or possibility ama suurtagalida of picking something inaad wax doorato. taasi my choice ka waa dooqayo. I had my choice marka choice banayna si fiican u soo dhageyso buugga. I had my choice of 5 doors to open. I had my choice waxaan haystay dooq of 5 doors to open. 5 albaab la furo. marka 5 albaab la furo ayaan mid ka raba ka dooran kari way. ereyga waxa community waa bulsho ama koox dad oo isku meel ku nool. a community is a group of people waa koox dad who live together isla nool. the kids caruurta ama ilmaha yararka from my community ee bulshada ka soo jeedo usually play together waa isla ciyaaraan. usually play together badana isla marka play together waa isla ciyaarid. xogaa carabkan fududeynaya haddii aan aad u boobsiyey waa iisoo sheegi kartaa dhow. ereyga waxa dead dhintay waay. dhintay waay waa adjective waa sifo. to be dead is not to be alive waa inaad nooleen. dead person qofka dhintay is usually buried waxaa lagu xawaalaa in the ground dhulka. a dead person is usually buried badana waxaa lagu xawaalaa in the ground. marka dadka adduunku nool inta badan waa isxawaalaan marka laga reebo kuwa yar isku. erey kale maanta barayna waxaa distance waa masaafo. masaafo laba meelood inta isku jiraan. the distance between two things masaafada laba shay u dhaxeeya is how far it's between them waa inta isku jiraan. tusaale markaa the distance between the earth masaafada u dhaxaysa dhulka and the moon iyo dayaxa is 3,800
384,000 384,400 kilometers يعني cirka iyo dhulka dhulka iyo dayax waxay isku jiraan 384,400 kilometer maxaa the distance masaafada between the earth maya dhawaqa sax the earth dhulka and the moon dayaxa is 384,000 wa 384,400 kilometers soo soco ereyga kale waxa escape waa baxsasho ama fakasho marka aad baxsato ama aad fakato qofka xabsi ka baxsado kale to escape is to run away waxa macnaha run away from something bad waxa inaad ka fakato run away from something bad waxa marka ka fakato ayaa waxa la escape the butterfly balanbalisi could not escape kamayna baxsan karin from the cage qafiska cage waxa la qafiska badanaa waa wax shabaq camal ah oo xayawaanada marka la soo qabtay lagu ridaa iyo xataa marmarka qaarkood tuugada erey kale marayna waxa weeyaan face erey kale waxa weeyaan waa face oo ah wajahid weeye face oo ah wajahid weeye face wajina way noqotaa laakiin hadda waa verb waa wajahid marka waxa wajahda dhibaato marka so if you face a problem hadda dhibaato wajahdo you deal with it wala macaamish so my sister and I aniga iyo walaashay have to find waxaan ku qasbananay inaan a better way hab fiican to face our difference or u wajahno ama u xalino farqiga our difference my sister and I have to find a better way aniga walaashay waan ku qasbanay to face our difference inaan helo inaan xal u helno farqiga noo dhaxeeyo marka ereygu saas u noqday erey kale waxa weeyaan soo halkan tirada khalday aan sax hadaba halkan waa 7 this is 7 right and this is 8 tana waa 8 halkaas ay maraysaa marka okay the last two words labada erey u dambeeyay waxay noqonaysaa follow waa raacid waa verb waa raacid to follow means to go behind someone inaad reera go behind someone inaad ruux raacdo and go where they go meesha aadaan inaad u raacdo waxaa la follow the little boy wiilkeeda followed wuxuu raacay his mother hooyadii home xaafadu raacay marka follow waa raacida the follow means to go behind someone inaad qof raacdo and go where they go meesha aadaana adoo aado the little boy wiilkeeda followed his mother home hooyadii ayuu guriga u raacay ereyga u dambeeya waxa fright waa cabsi fright is the feeling of being scared fright is the feeling waa dareenka of being scared inaad cabsato marka fright fear scare waxa soo cabsi she was filled with fright cabsi ayaa buuxisay hadii aad badbaasantiin soo casharka u dheeraan oo custaanin halkaas ku dejinaya casharada dartan hadda 10 erey baan u soo dhigay hadii aad rabtaan inaan ka sii badiyo oo 20 iyo gaarsiina waa soo codsan kartaan waana keeri karaa laakiin qasab waxay noqonaysaa in laba video ka kala dhigo maadaama hal video hadaan ka dhigo uu cuslaan